waxaan aad ugu faraxsanahay inay maanta noo soo gabagabowday tababar maxaan ku iraahdaa loo qabtay ardayda dufcadda 8aad ee jaamacadda badda cas ka qalin jabisay waxaan baranay CV-yada marka aad codsiyo aad geysanaysid sida u qaabeyn lahayd khaladaadka aad iska ilaalin lahayd iyo sidoo kale hal abuurka si guud sidee baa u noqon lahayd qof hal abuur. Career development it's very important, a key before the graduates they graduate, because once they go out there they will be joining the real world. So the theory they have learned in their books, it's not enough. They need practical, and that is what Red Sea is offering to these graduates. waxaan uga sheekeeyay tilmaamaha laga rabo qofka muslimka ah inuu yeesho wax kasta waxa leeyahay halbeeg bay leeyahay wax kasta Ilaahay subhanahu wa ta'ala galay marka halbeegaasi ayaan uga sheegay 10 sifo ayaan u sheegay ay ku ugu muhiimsan kamid ahaayeen qof muslimka qof shaqaysan kale inuu yahay qof waqtigiisa isugu aadan yahay qof akhlaaq fiican leh qof cibaado wanaagsan mataqaana sameeyo oo saxiix sameeyo aqeeda fiican leh marka tilmaamahaas oo qof kasta muslim ah uu leeyahay in laga helo ay tahay waxa uu ka haystana inuu sii kobciyo oo sii kordhiyo wixii ka dhiman oo uu isleeyahay waa taqaana uu ka dareemay inay gaasir yihiin inuu si wacan u samaysto oo isugu aadisto ayaan u talagalay runtii waxa ugu fiican Ilaahay subhanahu wa ta'ala koonka keenay waa qof muslim ah oo ugu fiican dunida waxa jooga marka inuu dareenkaas iyo ihsaaskaas nafsiga inuu galo oo dareemo inuu muslim yahay ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إني من المسلمين وأنا أول المسلمين مركا مسلم الماضي إنه مركا إحساس كدين قفانه قف دين تيسا إنه قف نوح كود إنه قدرامه قف قف عدوك إنه يقدرامه إحساس لكليه وحيالها كهيران أو كأركيا نرشي سائي الدنيا المسلم كإن وقد حبحه سبحان إنه وحره بان وترى قلي أو قف مسلم أو هو سكو آدن أو نفع له أو نكسن أو أخلاق له أستامهاس أيان كوبعيني runtii waa dareensanahay ardaydan inay wax badan ay ka dareensan yihiin laakiin wadakir fa ina dhikra tanfa'u almu'miniin ayaan ugu talagalay qaban qaabay ahayd iyo baritaar iyo inaan hagno oo aan tilmaamo siino laakiin insha Allah suuqa shaqada marka tagaan waxaan jeena kuwa ka horeeyba siday mataqaan u fiicnaayeen inay kuwan u fiicnaadaan barajeena inaan ka qaybgal fiican iyo saam fiican aan suuqa ku darsanno shaqada dadna noqon lahayd suuqa ganacsiga gaarka loo leeyahay wax barashada dawladda hay'adaha caalamiga dhammaan ardaydan halkaas ay aadaan skillska ku saabsan xagga technology-ga inaad iska dhistaan qorshuhu ma aha anigu waxaan ka baxay fiilkaas ee fiilkan ma dhigan adoo sharci dhigtay haddana waa in IT-ga wax ka taqaanaa arrintaas waa arrin muhiim ah maanta suuqul amal fursadaas aad bay uga jirtaa waana waxyaabaha loo baahan yahay waana caalamku maanta tawajuha ama waxa la yiraahdaa world trending adduunku maanta meesha u jeedo waa teknolojiyadda arrintaas waxa ku anfici kartaa naftiina iyo dalkiina iyo dadkiinaba arrinta labaad risaalada labaad inaad xambaartaan idinka raba waxa waaye inaad dareentaan ownership lahaansho jaamacadda ka baxdeen dalka aad tihiin intaba inaad ownership dareentaan oo aad waxa weeyaan wax inaad uga tagtaan oo wax qabad ah birina aad wax qabad soo celisaan waa wax muhiim ah waqti kamid hal saac kamid hadda frontier aad tahay oo jaamacadda macallinka noqon karto farsamada ku caawin karto waa wax loo baahan yahay inta u dhaxaysa oo labada tababar oo ardaygu markuu jaamacadda soo galo ilaa markuu dhamaynaya ardaydu waxay qaadanayaan tababarro kala duwan oo runtii ay garab socoto curriculumkii iyo manhajkii loogu talagalay ardayga marka runtii ardaygu markuu intaas qaato oo tababarkii uu qaato iyo xirfadihii manhajkii iyo waxyaalihii kale oo jaamacadda ugu talagashay uu qaato waxaa soo baxaya arday dhammaystiran oo dhinacii wax la skillskii xirfadihiina ka dhisan dhinacii kale oo mataqaanaa manhajkii iyo curriculumka jaamacadda ay ugu talagashayna ka dhisan runtii taas baa markaa waxa lagu gaaraya guul dhammaan wax la ardaydu ay ku noqon karaan arday bulshada iyo dadka anfaca qofka naftaada kaliya inaad ka fikirto maaha laakiin waxaa la qofka muslimkii waa naafican lighayri maxaa yeelay qofka waxaa la yidhaha khayrka midka gudba ayaa ajri badan marka waxaa laydinka rabaa inaad noqotaan kuwa dadka anfaca dadka qaarkii innaga bulshadeennu waa anaaniyiin qofku naftiisun buu ka fikiraya dowladdii soomaalida qarankii soomaaliyed maxaa loo leeyahay waa qof waliba wax gaar uu rabaa dantii gaarkahayd wuxuu ka hormarinayaa tii guud buu ka hormarinaya marka waxaa laynaga rabaa danta guud inaynu ku dadaalno danta guud hadday hagaagto ta gaarkii way hagaagaysaa soo ma waxaa kaloo muhiim aan rabnaa inaan isu dardaaranno
mawaadicdii laga hadlayay oo hadda ustaad saciid khayr allah siiyo qodobka u dambeeyu ka hadlayay oo ah qofka wax bartaa adduunkan hadda soomaalida waxaa la yidhaahdaa waxaa la white color job wax la yidhaahdo qof waliba wuxuu rabaa shaqo nadiifa inuu helo nadiifta maxaa loola jeedaa inuu xafiis ka shaqeeyo ya qofku fursad kasta inuu ka faa'iidaysto aad bay muhiim u tahay waxaa muhiima waddankeena waxaa la shaqo la'aan baa ka jirta dad badan baa hadda dibadda nooga yimaada Soomaa dad wadamo badan hadda Yamaniinta jooga Suuriyiin baa jooga bulshooyin badan baa jooga Soomaa shaqo u soo doonta marka waddankeena shaqo way buuxdaa laakiin waxaan rabnaa shaqo gooni ah Yurub iyo dad waddankiisii dhidideen yaa oo dheecaankii ku daadiyeen oo green ka dhigay waxaan rabnaa inaan tagno Soomaa kabacdina hadhow aan musqulaha u dhaqno keenina waa dayacan iyo khayraadkiisa marka arrintaasi aad bay muhiim u tahay inaynu waddankeena aamino oo jeclaano waa muhiim weeye qof waliba inuu ku baraarugo kii tacliin doonanaya tacliin qofkii soo faa'iidaysanaya waa wax fiican moogta laakiin hadda ninka intuu tago oo tahriibo oo maamadii iyo aabbihii mashaakil ku rido waa mushkilo weyn waxaan is leeyahay dareenkayga farxadeed aad iyo aad lama soo koobi karo sababtoo ay tahay markii aan meesha soo fariistay iyo markii aan ka baxayay oo tababarku ii dhammaaday waxaa u dhaxaysay dareenkayga farqi baa u dhaxaysay waxaan aaminsanahay wax weyn inaan ka faa'iiday kaasoo oo dhan walba aan aaminsanahay inaan iga anfici doono